السلام عليكم. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arrin maalmahan soo noqnoqotay oo maaragtay wax badan laga hadlay oo dad badan ay maaragtay muxuu ahaa ay had siyaabo kala duwan macnaha u kala sheegeen oo waxa xaqiiqada ah bal maanta inaan ka hadlo. arrinta aan rabo inaan ka hadlana waxa waaye guriga hooyooyinka yaa iska leh, yaa xaq u leh guriga hooyooyinka. arrintaas raba inaan ka hadlo. marka akhyaaray noo share gareeya, like, subscribe. goolkaygiina weli waa sidiisii kunkaan la gaarsiiyo. dadkii subscribe gareeyena aad bay u mahadsan yihiin. iga raalli haddaan intii hore iloobay maaragtay, bal muxuu ahaa waa mahadsantihiin haddii aad hore maaragtay subscribe u samaysaan, share, like u samaysaan. marka waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arrinta ku saabsan gurigaas yaa iska leh, yaa loo dhisay maaha guriga yaa iska leh oo xaq u leh. gurigaas xaqa waxaa u leh shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho. gurigaas waxaa lagu dhisay waxaa la yidhaahdo iskaa u qabso. lacagta gurigaas lagu dhisayna waa canshuurta laga soo aruuriyey dadka shacabka ah. ma aha muxuu ahaa mid oo qof ama group ay sameeyeen sida hadda muxuu ahaa ay ku andacoonayso islaantan hadda fadhida oo la yidhaahdo Batuulo Gaballe. waxay tiri waxaa guriga lagu dhisay dahabkii gabdhaha Soomaaliyeed, annagaa dhisnay, annagaa maaragtay ii sheeg iska leh, cid kaloo naga leh ma jirto. marka guriga wax dahab lagu dhisay ma jiro. dahab lagu dhisay waxaa gabdhuhu ay bixin jireen waagii xornimo doonka. laga abaal dhici maayo, gabdhaha Soomaaliyeed waa maaragtay waa soo halgameen. laakiin gurigan sidiisaba xilligii Maxamed Siyaad Barre la dhisay waxaa lagu dhisay waxa la yidhaahdo iskaa wax u qabso. iskaa wax u qabso waa lagu dhisay. iskaa wax u qabso maxay tahay haddaan dadku aysan aqoonin? waa macnaha shaqo dadweynaha Soomaaliyeed ay qabanayaan oon loo kala haraynin, rag iyo dumar aan loo kala haraynin, oo maaragtay hab runtii haddii la fiiriyana si fudud dadku oon dhib lahayn maaragtay hab ay ugu dhisaan guryahaas ama iskaa wax u qabso markii la samaynayo lagu dhiso loo sameeyey. oo ah in qolana ay qasaan shamiitada, qolana guriga dhismihiisii ay noqdaan oo fuundigii guriga dhisayey oo dhagax dhigayey oo cabirka hayey uu noqdo, iyo qolo maaragtay shamiitadaas la qasay u gudbinaysa qoladaas kor joogta. marka waxaa la samayn jiray sida hadda aan idinku tusi doono video yaron hayo. waxaa la samayn jiray inta fayl la galo, waxaa la samayn jiray muxuu ahaa in markii lagu soo shubo sakeelka waxaa la yidhaahdaa baaldi yar oo madow, ma aqaanin hadda kolley Soomaaliya laga helo in kale, iyo laakiin baaldi yar oo madow oo loogu talagalay dhismaha loogu talagalay oo sakeel la yidhaahdaa jira. sakeelkaasaa shamiitada lagu soo shubaa.
dadku faylay galayaan faylku wuxuu taxan yahay ilaa iyo meesha lagu soo shubayo maaragtay kor oo faylku taxan yahay faylkaas dadku ma dhaqaaqayaan meel uma socdaan waa isku dhiibayaan bis qofka ugu horeeya loo soo dhiibaa qofka ugu horeeya marka loo soo dhiibo qofka ku xigo u dhiibaa qofka ku xigo u dhiibaa gacanta waa la isku gudbinaa bis waana habka ugu fiican oo macnaha looga faa'iideysto macnaha dhismahaas macnaha habkaas iska xuqabso oo asaga laftigiisa laga soo manguuriyey faraaciintii hore laga soo manguuriyey laftigiisa oo waxa waaye sidii lagu dhisay pyramidka lagu dhisay waaye macnaha dad waxay isleeyihiin pyramidkaas weyninka badan waxaa lagu dhisay waxyaabo culculus oo ama weeshash iyo balaayo wax lagu qaaday laakiin ma jirin shub ahaa shubkaasaa marka laisku dhiibayay saasaa lagu dhisay pyramidka dhanba marka halkaas faraacinta laga keenay kastoo dad badan oo faraacinta maaragtay ii sheegeen ku asal ah ama ku tafriira ay Soomaaliya joogaan oo dadka dhulka loogu yimid ay yihiin waxa waaye marka hadda islaantan la yiraahdo Batuula Gaballe horta anigu warkii hadalkeeda waxaan maqlay sideedaba xal xilligii farmaajo ka hor inuu ma aanan maqlin kolley ururka haweenka waxay haysatay naag la yiraahdo macnaha Muraaya Garaad waa maqli jiray inkastoo hadda ay leedahay Muraaya Garaad la shaqeey jiray haddana ay tiri nin waxa ay qabay taliye ku xigeen booliis ay qabay marka hadalkeeda dhanba anu ma aanan maqlin hadda mar dhow igu horreysay ayada dhanba gurigaana waxa waaye wax ay maartay shuqul ku leedahay inaba hal ekaatee ma jirto haddaysan indha adeeg wadin guriga marka maxay macnaha ay u joogtaa meesha wax kale meesha uma joogto anigu sida ila tahay waxa waaye inay gurigaas oo dhan waa guri waa intaasoo dabaq maaragtay inay kiraysato oo kiradaas ay iska dhuuqdo bis intaas u joogtaa wax kale uma joogto meesha waxa waaye marka haddee guddoomiyenimadiina haddii la fiiriyo haweenkoo dhan waxay leeyihiin doorashadiiba waa qaba la'dahay macnaha waa dictator meesha fadhiya noqoto qofku runtii sababta waxa waaye doorashana ma qabanayso qof bedela maaragtay ma ogola oo maaragtay say leeyihiin haweenku inta badan aan fiiriyey meeshana iska fadhisay rabtaa waxeedaas iska dhuuqdo ya maaha dan haween maaha waxay meesha u joogto runtii gabdhaha Soomaaliyeed kursigu waa u banaan yahay waaga markuu bariyo ilaa hadeertaan waxaan ka shaqeynaynay maxay ahayd arrimo oo shalay soo banbaxay oo maxay ahayd in qalalaaso ahayd
oo maxay ahayd ka dhacay maxay ahayd guriga haweenka Soomaaliyeed ka dhacay qalaasadaas oo sameysay gudoomiyihii oo waqtigeeda uu dhamaaday maxay ahayd wasiirkana waa soo aragnay maxay ahayd wada tashi badan aan soo sameynay laakiin waxa shaqeynaysa wasaaradii oo wasaarad baaxad weyn ah oo ah wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaan kamid ahay dadka dib u yagleelayaan kamid ahay oo dib u sameeyaan kamid ahay aniga iyo maxay ahayd dad badan oo baarlamaanka ku jiro iyo gabdho ka maqan baarlamaanka oo tayramka dhawaay ka baxay maxay ahayd waxa gudoomiye loo dartay Caashe Cumar Geesdiir 7 qofood oo boorka ahaan ku jiray ayada oo waqtigeeda dhamaanin oo Caashe ay xanuunsatay oo qarax ku dhacay ee baxday ayaa maxay ahayd Caashe waxay tiri maxay ahayd hawsha dadka la loo igmado doorasho la sameeyay waxa lagu doortay Batuulo Sheekh Axmed Gabbala lagu doortay waxa ku baaqday 3 teeram oo doorasho ah ku baaqata Batuulo oo aan dhahna gudoomiye doorasho la qabto gudoomiye doorasho la qabto warlool waa laga baxay dalka in la qabsado waa laga baxay walaashay waxaan leeyahay waqtigaaga waa dhamaaday doorashadina waa qaweysay 3 jeer inaad doorasho qabatay ahayd waxa aad agaxumahay in shalay maxay ahayd qaranka Soomaaliyeed aad ku gaftay laguma gafi karo qaranka Soomaaliyeed wax kasta oo sareeyo sharciga ka sareeyo waa in sharciga loo hoggaansamaa waay maxay ahayd 10 sano ka badan ayuu iska banaanaay oo dad laga kireystay oo ay deganaayeen hay'ado kala duwan iyo maxay dad aan la kasaynin intaba ay deganaayeen waxa u baahatay dawladda Soomaaliya u baahatay guriga dawladda iskale dawladii iskale heeda la wareegtay ayada degay shanta Soomaaliya waxa la sameyn doonaa hadii Ilaahay idmo doorasho la sameyn doonaa ururka haweenka waxa laga soo dhisi doonaa gobolada waxa laga soo dhisi doonaa magaalooyinka marka laga soo degmooyina laga soo dhisaa gobolada laga soo dhisaa magaalooyina laga soo dhisaa inta la isku keeni doonaa doorasho oo si sax ah dhici doonto walaashay waqtigaadi Batuulo waa dhamaaday waxa loo sameey doonaa looyaro iyo dad sharci yaqaan iyo dad ka shaqeeya loo sameey doonaa walaalay macaanay qalalaasada aad dalka ku wadid ka jooji waxaan ku leeyahay walaashay aad tahay dadkii cishadkaada lahaayaan nahay guriga haweenka cid dhacday ma laha Soomaali beenta ay u sheegaysid iska dhaaf gabdhaha Soomaaliyeed gurigi lama gadin gabar walba u banaan tahay inay is soo sharaxdo waa la is dooranayaa waana laga soo shaqeynaa ilaa raas kambani ilaa raas caseer shanta Soomaaliya iska leh gabdhaha Soomaaliyeed ay gabar walba ay aqoontaada ku imaaw mar dambe inaan rag u sabrino ma ka shaqeynayno waxaan ka shaqeynaynaa aqoonteena ka shaqeynaynaa gabar walba waxa lagu qaadan doonaa kriteeriye aqoonteeda lagu qaadan doonaa gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho aad u karti badan waa gabdho dalka samata bixiyay waaye ma akhrinayno mana yeelayno gabar hadeertaan inta timid dalka aan ku sharafnay ayadoo dalka dibadiisa ka timid oo aan dhahno waa mudan tahay maanta dalka inay inta qalalaas ku sameeyso madaxda dalka ugu sareysay ee aflagaadeyso ee ka been sheegto waxaan qaadanayna ma ahan Batuulo waqtigaaga waa dhamaado walaal raali ahaw gabdhaha Soomaaliyeed kursiga waa u banaan yahay waxaana la mari doonaa system sax ah la mari doonaa gurigana waxaa la dhahi doonaa guriga hooyooyinka waxaana ku shaqeyn doonta wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ku shaqeyn doonto meeshaan dawladda jirto dawladnimada lagu kala dambeynaayaa haddii Ilaahay idmo waxa waaye wax kastana sharciga ka sareeyo Batuulo sharciga uu hoggaansan waana maadsan waayo haddaba waxa la leeyahay waxa waaye dawladdu ay leedahay haweenaha ku shaqeynaya meesha ay u diidantay afantamo marka ayadu wax kala ma rabta intaas ay rabtaa ayadu waxa isu kiiska isaga waalayso intaas hadday intaas waa soo wax badan kulli meesha fadhisi oo la ogeynba runtii inkastoo hadda dhow ay soo shacbaxday wax badan ay meesha fadhisay waxeeda iska dhuuqaysay waxa waaye marka waxa loo baahan yahay hadda maadaama dawladdii ay leedahay gurigan waa loo soo baaxday haweenkan ku shaqeynaya wasaaradda haweenka ku shaqeynaysa gurigan oo maaragtay looga baxo inay isgarato tiraahdan dee waxaad ka soo cuni kartana waa ka soo cunta kowdhe bal inta iimaanka isgelisid ya bal muxuu ahaa isaga tag ayadu waxay ku leedahay guriga xaaqid leh maahane wax kale lagama helo intaasoo macnaha muxuu ahaa apartmento ama muxuu ahaa ii sheeg sakadood waxa waaye ama qol waxa waaye dee lacag yar lagama helayo xaaqid kaliya ma noqonayso ayadiyaa degan aragno waxa iyada laftigeeda deganaanteeda meesha waxay maadaama meesha ay meel
hay-ad in lagu shaqeeyo laga taga ay tahay hay-ad la dego inay tahaan ilama aha kulley marka ayadiyaa degan waxa waaye waxay samaynaysaa muxuu ahaa wixii ka soo baxana meelna uma wado xataa lagama canshuuraa u malayna saamaba looge waxa waaye marka halkaasay maaragtay iyadu ay iska bariinsatay intaas hadday soo wadayo ilaa xilligii farmaajo ay iska dhuuqayso waxeeda oon la ogeyn aan loo baahan yahay hadda maadaama dowladda u baahatay inay maaragtay xoogaa isgarato oo tiraahdo bal intaas hadda soo wada hawshee ood waxaaga soo dhuuqaysa bal maaragtay hadda isgaro bal dadka kalena bal jaanisi wasaaradduna ha ku shaqayso haweenka maxay dhibe wasaaradda haweenka haddii meesha ku shaqayso maadaama haween uu ku magacaaban yahay gurigu waxay dhibaysa male marka intaasaan rabay inaan maanta ka hadlo sababto waxa waaye waa wax badanay soo noqnoqotay ayadii maalin walba waa qaylinaysaa waxa waaye dowladdii waxay leedahay meesha ha laga baxo marka waxaan rabay inaan xaqiijiyo guriga ahaantiisa cidda iska leh guriga waxaa iska leh dadweynaha Soomaaliyeed iska leh guriga shacabka aa dhisay guriga lacagtana waxaa lagu dhisay canshuurtooda imahana gabar maaragtay dahabkeedii waxaas maba la samey jirin maxalligiisa bar marka intaasaan rabay inaan maanta usoo galay oon rabay inaan maaragtay aan ka hadlo like share subscribe viewga noo badiya maaragtay shareka aad noogu badiya hanaga xasdin harfaanay waxa waaye waxyaabo badan oo inaan ka hadlaan rabana waa jirtaa marka bal qofkii maaragtay subscribe-ka iyo shareka iyo like-ga sameeyna aad u mahadsan yihiin dadka sameeyey marka intaasaan maaragtay kusoo gabagabaynaya maaragtay nabadgelyo iyo nool kulanti